madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegto ka soo saaray sharci darro ku tilmaamay doorashada ka socota magaalada Ceelwaaq iyo doorashada kale ee ka socota xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka ay ka bilaabeen magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado. wareegtada ka soo baxda xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in doorashooyinkaas barbar socda Garbahaare iyo Ceelwaaq ay yihiin kuwa sharci darro baalmarsan sharciga jeynta doorashooyinka dadban ee ay ansixiyeen labada baarlamaan ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. wareegtadan oo lagu socodsiiyay madasha wadatashiga qaran iyo gudoomiyaha ku meel gaarka ee golaha shacabka ayaa lagu faray in la xushmeeyo heshiiskii 17 September 2020 iyo habraacyadii ku lifaaqna ee ay xubnaha wadatashiga qaran kala saxiixdeen 1 Oktoobar 2020 iyo 27 May 2021. qof lagu soo doortay hanaan khilaafsan heshiisyada doorashooyinka iyo xeerarka lambar 30 ma yeelan karo xuquuq la mid ah xildhibaanada lagu soo doortay hab waafaqsan heshiiskii 17 September 2020. sidaas darteed kama qayb qaadan karo doorashooyinka guddoonka iyo tan madaxweynaha sidoo kale oo aan heshiis wadar ogaal u gareen madasha wadatashiga qaranka iyo si waafaqsan heshiiskii 17 September ama uusan soo saarin baarlamaanka 11aad. wax ka bedel xeerka baarlamaanka labadiisa aqal ee ay hore u ansixiyeen ayaa lagu yiri wareegtada madaxweynaha ayaa tilmaamay in wax ka bedelka heshiiska 17 September iyo habraacyadii ku lifaaqna ay u baahan yihiin heshiis sidaaseed oo ay wada xaajoodaan xubnaha madasha wadatashiga qaran isagoo faray inay si degdeg ah ugu yimaadaan si xal dhameystiran looga helo kuraasta 16 ku aasaysa magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa adkeeyay in la sii dardargeliyo doorashooyinka loo madlan yahay ee guddoonka labada aqal ee doorashada madaxweynaha iyo sida ugu dhaqsiyaha badan.